daawadayaal meel kastoo joogtaan iyo meel kastoo naga daawanaysaan maqalkayga iyo muuqaalkayga oo ka soo gaarayo maanta muuqaalkayga wuxuu ku saabsan yahay waxaan kaga hadli doonaa sida aan ku buuxin lahayn bankiga ama akoonkii noo furnaa ATM-ka inaan buuxino maanta waajibkeena wuxuu yahay inaan lacag ka soo bixino application-ka lacag ka sameynay si aan u soo gelino ATM-ka kadibna aan meel kale aan sii dhigano sida ana option-ka noo furan insha Allah muuqaalka xigaan ka dhigi doona insha Allah soo ATM-ka dahan gudaha u soo galno soo lacagtii shalay aan soo dhiganay ATM-ka aan kala soo baxnay application-kii hore waa una soo galay sawjidan waa 21 senti ayaan kala soo baxnay waa gaaf ayaan kala soo baxnay sawjidan hadda waxa ugu jirto 40 senti hadii la isku daro 89 21 lagu daro waa 40 senti soo hadda waxaan rabaa inaan la soo baxo lacagtii kale hayd lacagtii kale inaan soo buuxsho oo aan geeyo halka doolar insha Allah kadibna aan kala soo baxo ama meel kale aan dhigsanoti waa option kale ee furan sawjidan marka application-ka ayaan gudaha u soo gari doonaa waxaan ka bilaabi doonaa labada application midna waa Gafi number midna waa Haya Fislow okay waxaan ku bilaabi doonaa midka ugu horeeyo Gafi number ayaan booqan doonaa Gafiyaasha qaar waxay leeyihiin meel la dhiro ama tirooyin ama waxa aad sheegayso ama waxa dooranayso tirooyin kadibna lagu sheegay inaad noqotid inaad daro noqotid okay kuwaas waa Gafiyaasha qaar kuwa kalena way ka duwan yihiin marka soo hadda waxaan rabaa lacagtan ugu jirto 40 ka sitina la baxo xoolo bixi doona insha Allah idinkana waa arkaysaan sawjidan hadda waxaan booqanayaa ATM-ka si aan arko si aan macnaha u fiiriyo okay log out and record okay dib malahan gudahan u soo laaban doona soo waxay ugu jirto sawjidan hadda 44 senti ay ugu jirto 44 senti waxaan rabaa inaan la baxo oo kula baxo ATM-ka sawjidan hadda waxaan bixinayaa 44 senti hadhowna meesha aad ka arki doontaa markii ay 5 minutes ka soo wareegto kadib lacagtii waxay soo gali doontaa ATM-ka ila daawo muuqaalka bilow la dhamaad soo hadda waxaan rabaa inaan Gmail-kan geliyo Gmail-ka ayaan gelin doonaa insha Allah Gmail-ka markaas soo geliyo kadib waxaan gelinayaa lacagtii aan doonayay inaan la baxo hadii aad lacag ka badan ka sameeysid oo kala 20 ma geli kartaa laakiin hadda 20 iguma jirto soo waxaan gelin doonaa lacagtii ay igu jirto macnaha waxaan gelin doonaa only oo kaliya lacagtii igu jirto okay soo sawjidan hadda waxa igu jirto 44 senti 44 senti markaan dhaho withdrawal si toos ay ugu dhici doontaa waliba waxay u soo gaari doontaa 5 minutes kadib waxaan leeyahay withdrawal lacagtii waxaan leeyahay ma xaqiijisay inaan kula baxday Gmail-kan okay waxaan leeyahay confirm waan aqbalay kadib markii aan sidaas u geliyo kadib waxa la soo dirayaa fariin ah inaad lacagtii aad dirtay oo aad ku guuleysina ku dirto ATM-ka akoonka hadda ujeedaan akoonka wax ku haray ma lahan waxa ku haray ujeedaan eber 0 dollar ay ku hartay soo lacagtan ujeedaan hadda waxay u soo gaaraysaa 5 minutes kadib ay soo gaaraysaa ama 5 days ama 5 days maahan waa 5 minutes ama 3 minutes kadib ay soo gali doontaa insha Allah idinkana waa arki doontaan insha Allah soo hadda waxaan kala soo baxay meeshan ujeedaan waxaan kala soo baxay 40 senti soo 5 minutes ama 3 minutes kadib baa soo noqon doontaa 80 senti iyo wax la jiraacmay isku noqon doontaa soo waxaan imaan doonaa Haya Fislow markaan imaado kadib oo aan soo galo meeshii kadibna waxaan rabaa Haya Fislow oo gooni ah in asigana macnaha lacagtii aan kala baxo soo waxay ugu jirto 21 senti sentiyaal ayaa waxay noqon karaa lacag aad u badan runtii sentiyaal badan isku dirsta 100 adiga $50 isku noqon kartaa insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu muuqaalkaaga yahay runtii soo waxaan taawanaynaa ATM-ka ayaan taawaynaa ATM-ka asxaabtana qoonin qaabka loo furto insha Allah muuqaal gooni ka soo diyaari doona qaabka loo furto iyo shuruudaha u baahan yahay hadda ujeedaan 44 senti way soo gaartay soo waxa lagu cadeeyay meeshan soo inay dirmatay oo ay gashay ATM-ka okay waxaan gelinayaa Gmail-ka Gmail-ka gelinayaa kadibna ATM-ka wuxuu u baahan yahay Gmail ayuu u baahan yahay okay waxaan gelinayaa 21 senti 21 senti markaan diro kadib muddo 5 minutes ama 3 minutes kadib
waxa ay soo gaari doontaa $21 waxayna isku noqon doontaa $1 ay isku noqon doontaa sawjidan hadda waxa leeyahay ma aqbasha ay leeyahay lacagta inaan dirtay 21 senti ama 21 senti soo sawjidan akoonka waxa ku haray 0 lacagta way baxday waxay noogu soo gaari doontaa 24 hours ama waxay noogu soo gaari doontaa 3 minutes and 5 minutes okay soo hadda waxaan ku soo laaban doonaa RTM ka sawjidan hadda sawjidan lacagta wayna soo gaartay 44 senti 44 senti wayna soo gaartay muddo 3 minutes ama 2 minutes ama 1 minute ay noogu soo gaartay sawjidan hadda lacagta waxay isku noqotay 84 senti ay isku noqotay 84 senti kadib after 3 minutes ama 2 minutes kadib waxayna soo gaari doonto 21 senti kadibna waxay isku noqon doontaa $1 iyo sentiyaal ay isku noqon doontaa $1 iyo sentiyaal ay isku noqon doontaa insha Allah RTM kan qaabka loo furto muuqaal gooni ah ka soo diyaarin doona sidoo kale waxa jirto application qaar aad ka soo dhigi kartid lacag adigoo waxba u baahan ama adigoo qarash aadan gelin applicationada qaar sida applicationadaas waan sheegi doonaa insha Allah muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah soo sawjidan hadda hadii aan saan dhahno soo lacagtii 21 wali nama soo gaarin soo waxyar ayaa dhiman after waxyar kadib insha Allah wayna soo gaari doontaa soo intaan ugu cadeyn doonaa masjidka waxaan ugu cadeyn doonaa meeshaan ugu cadeyn doonaa cadeemo waxaan soo dhici doonto oo ah in lacagtii soo gaartay marka hadii aan ku laabano lacagii aan kala baxay application ka hadii aan ku tuso sawjidan RTM ka soo lacagta kala baxay ugu horeysay waxay 19 mid ku xigta waxay 21 soo haddana waxa 21 sawjidan waxa kala baxay intaas ayaan kala baxay soo lacagtan hadda u jeedid RTM ka u jeedan lacag aniga macnaha aan soo dhigtay oo deposit ma ahan lacag aan soo dhigtay oo deposit ah ma jirto waa lacag aan anigu ka sameeyay applicationadan isla markaana kala soo baxay waadna dareemi kartaa in lacag kala soo baxay sawjidan lacagtan waxay soo gaartay tan ugu horeyso 27 October 2022 waa 19 senti soo tan kale waxay 23 November mid hore October midaan waa November 23 2022 halka ay soo gaartay mid 44 senti oo hadda aan kala soo baxay waa November 25 2022 ay soo gaartay marka saaxiibayaal waxay isku noqotay waa 84 senti hadii shilin ahaan u qiimeeyay waxay noqotay waa 474.30 shilin ay isku noqotay soo shilin ahaan ay u qiimeeyay marka in application qaab badan oo lacag lagu baxaa jirto laakiin qaabka ugu fudud markii aad lacag $1 $4 $5 aad shaqaysid aad la bixi kartid ama meel kale aad u dhigi kartid si aad lacag u samaysid ana ku hayo insha Allah muuqaal gooni ayaan ka soo diyaari doonaa insha Allah muuqaalkaasna wuxuu noqon doonaa muuqaal gooni ah sidoo kale haddii ku cajabay muuqaalkan subscribe dhaho sidoo kale muuqaalka ila garay asxaabtaadan u share garay soo still lacagtina ma soo gaarin soo waxyar ayaa dhiman insha Allah waxaan rajeynayaa in ayna soo gaari doonto insha Allah after 3 minutes and 2 minutes and 5 minutes and 6 minutes waxay qaadataba kuleyto way dhameystirmi doontaa lacagtaasna waxay noqon doontaa $1 saa u jeedin hadda 44 senti ayaa la soo baxay 44 senti way soo gashay kali waxaan u dhiman 21 senti markay soo gasho soo waxay isku noqonaysaa $1 kadibna waxaan heli doonaa optionka labaad oo ah in aad lacag ka samaysid ama application qaar inaad lacag dhigatid adigoo qaab free ah ku dhiganay okay waliba adigoo faa'iido sii raadinay aad u maasantiin waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad ka bogatay oo aad ka faa'iido insha Allah muuqaalka xiga insha Allah markii $1 u dhameystirmo kadib waxaan iskugu maan doonaa anigoo macnaha oo macnaha solve doono qaabka applicationada lacag looga baxo qaabka applicationada qaar lacag loo dhigto insha Allah muuqaalkaas ayaan ka soo diyaarin doonaa aad u maasantiin